Atariisho Hindi ah oo caan ah oo isku dishay $133 laga cunay awgeed, isdilkii ayaa sahal noqday. Fadlan hadday tahay markii kuugu horreysay aad soo booqato janaalkeena, fadlan subscribe noo saar, like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan. Aragtidaadana comment noogu reeb. Haweeney lagu magacaabo Anuma oo Hindi ah misana atariisho ah ayaa is dishay, naftan is dhaafisay balse inta aysan is dilin ka hor muuqaal 10 daqiiqo soconaya ayay iska soo duubtay. Sababta ay isku dishay ayaana la yaab ah. Waxaa la sheegay in lacag laga cunay ay dhigatay shirkad maalgeliso badeecooyinka, waxayna ugu talagashay inay lacagteeda maalgashato. Sida awgeed, lacagtaas oo dhan oo lagu sheegay inay dhan tahay 10,000 oo rupees oo u dhiganta $133 darteed ayay isku dishay. Waana atariisho weyn oo muddo badan shaqaynaysay. Atariishadan ayaa samayn jirtay filimada lagu daawado luqadda Bhojpuriga, sidoo kale musalsalaadka way ka soo muuqan jirtay. Waxayna sheegtay in khiyaanadu wax walba ugu daran tahay. Sida muuqaalka ay ku sheegtay, meydkeeda ayaa laga helay gurigeeda dhexdiisa 2 Sebteembar ee sanadkan dhexdiisa. Daawade macquul ma tahay in qof isku dilo $133? Waa wax cajiib ah, dad badan la yaaban yihiin, laakiin iyada qaabka lacagta loogu khiyaanay ayay si weyn uga hadashay uguna murugootay. Si kastaba ha ahaatee, ma ahan lacag u qalanta in nafta la isku dhaafiyo, tii ay jirto in lacag walba nafta la siisan karin.